أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، لما أرضيال أكدواذا بيجكين يوتيوبك كابي أكاديمي وكما فيريانها مادة بيولوجي فورم 2 ديلا هوغلادا chapter 3. Ardayaal chapter 3 mayba ku hadalay nutrition and digestion. Waa nutrition and digestion. Ardayaal nutrition mayba linkasay nafaqa, digestion mayba linkasay dheefshiid. Saas darteed mayba fiiriyanaha lamadaas. Nutrition mayliga jeeda. Nutrition is the process by which living organisms obtain and utilize food. Waa habka noolayaalka ka isticmaalayaan raashinka. Waa habka noolayaalka ka helayaan waana ka isticmaalayaan raashinka. Iyo mayba linkasay nutrition. Ardayaal, the chemicals present in the food is called nutrients. Kiimikalyaalka oo ka dhex jira raashinka ama lagu helo kiimikooyinka lagu dhex helo raashinka mayba linkasay nutrients, nafaqooyin iyo linkasay. All living organisms dhammaan noolayaalka require mayba baahan yihiin food, raashin aan baahan yihiin to sustain life si oo noolaadaan. Food enables organisms to carry out raashinka mayba suurtageliyay noolayaalka inay qabsadaan metabolic activities, shaqooyinka metabolismka ama isku dheelitirka jirka. Isku dheelitirkaas tusaale maybaan aha respiration, growth, repair of worn out tissues. Waa respiration oo burburin, growth oo koritaan iyo repair dayactir of worn out tissues xubnoogii dhimadeen ama noodayaalkii dhimadeen. Ardayaal, nutrition mayliga jeeda ama nutrition nutrients. Nutrients are all foods contain dhammaan cuntooyinka mayba ku kooban yihiin at least ama lagu dhahelay at least one of the 6 basic nutrients. Mid ku mid ah lita asaasiga ah nafaqada. Antaas lita lakin sheego ardayaal mayba ku mid aha carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals and water. Waa carbohydrate oo linkasay cuntooyinka carbohydrate sida misigada, galleyda, soorta, laagasay. Proteins oo linkaso ardayaal raashinka, caanaha, ukunta, hilibka oo la mid ah. Lipids oo linkaso waxyaalaha dufanka ama solid dufanka adkaha sida baruurta oo kale. Vitamins oo kale mayba ku mid ah ardayaal vitaminaadka, vitamin K, vitamin C, vitamin E, vitamin iyo ku mid ah. Saasoo kale minerals macdanta ku mid ah ardayaal, macdantaas oo ku mid ah calciumka, phosphoruska, saasoo kale calcium, phosphorus iyo waa kale la mid ah. Saasoo kale ardayaal water biyo ku mid ah lixda nafaqada asaasiga jirka asaasiga. Carbohydrates mayliga jeeda ardayaal. Carbohydrate mayliga jeeda are compounds of carbon, hydrogen and oxygen. Waa mayba compound ama isku dhaf oo carbon hydrogen iyo oxygen noocyaalka carbohydrateska. Types of carbohydrates. Noocyaalka carbohydrates may ardayaal sideen shalbaan. Saddexdana may shalkasay monosaccharide, disaccharide iyo polysaccharide ay shalkasay. Monosaccharides mayba linkasay hal sokorley. Monosaccharides are simple sugars. Waa sokor fudud that contain ana soo kooban a single sugar kaliya hal sokor. Are absorbed waana mayba laha ku dhuuqay from the alimentary canal quickly. Alimentary canalka ama kanaalka asaasiga jirka kaasoo mindheerka ilaa iyo gaadhka seedaw ama meelo saxrada. Su'aal ardayaal, question: which one is true about monosaccharides? Aan hadda dareertay sax ku monosaccharides ama qeexaas monosaccharide. A. It is the most common. Monosaccharide ma bootan ka caansan. B. It is the sweetest. Monosaccharide ma boohan ama sokorta linkasay hal sokorleed tanka macaan. C. Monosaccharides considered mayba lintixgelay to be the best energy source. Inay ata
tamarta ama ila tamareed anka failiniyete for the brain ee maskaxda and other body cells iyo qaybaha kale ee unugyada jirka. The most common monosaccharides monosaccharideska waxaan ka caansan mabalinkasi waa saddexdaasna meesha lain ardayaal glucose, fructose iyo galactose linshakase. Carbohydrates are the main source of energy. Carbohydrates may boha main source ka ama ilanka weyn ee energy-ga necessary for cell activity oo muhiim ee shaqooyinka unugyada. The monosaccharides ee unugyada. Disaccharides are sugars that are formed was sonkor oo suubiyayan by two monosaccharides lama monosaccharide oo iskoyti joining together. Yes, waa lama. The three most common disaccharides are saddexda disaccharide oo anka muhiimsan ama anka caansan mayba maltose, sucrose iyo lactose. Study this table arday baray ama fiiri jadwalku. Disaccharide, constant monosaccharides. Disaccharide waxyaalaha ay ku koobanta. Tusaale ahaan ma sheegnay maltose, sucrose iyo lactose. Maltose may balinkasay malt sugar waa sonkor badan le. Malt sokor badan le. Sokor badan lahaas may ba ku koobanya glucose iyo glucose inisede. Lama glucose inisete iyo may balinkasay maltose. Sucrose aldayaal may balinkasay table sugar linkasay. Table sugar iyo linkasay. Saasoo kale yana may ba ku koobanta glucose iyo fructose inisede. Glucose iyo fructose markina inisje iyo may balinkasay sucrose. Saasoo kale ardayaal lactose may balinkasay milk sugar linkasay waa caanaha lagu helay. Taasna cusbada lagu dheela taasna waa malt sugar sokor badan le. Marka milk sugar may balinkasay yana may banisede glucose iyo galactose inisede. Glucose iyo galactose. Markii inisedan yana may balinkasay lactose substance. Ardayaal maltose may balinkasay malt sugar waana may ba ku koobanta glucose iyo glucose markii la iska daro. Saasoo kale ardayaal sucrose may balinkasay table sugar linkasay mayna ku koobanta glucose iyo fructose ku koobanta. Ardayaal saasoo kale lactose may balinkasay milk sugar waana may ba ku subsanta glucose iyo galactose markii la isjey iyo may ba subsamay lactose. Waayahay. Polysaccharides oo tan saddexaad. Monosaccharide, disaccharide iyo polysaccharide. Polysaccharides is a complex molecule waa molecule adag ama complex ama isku dhaf composed of one ku kooban 3 or more monosaccharides. Sida iyo in ku badan monosaccharide hal sokorre. Animals store glucose xayawaanada mayba ka keediyayana glucose in form of polysaccharide glycogen ahaan keediyayaan. And plants store yona dhirtana mayba keediyana in form of polysaccharide stack. Polysaccharide stack ahaan keediyayaan. Okay, plants also dhirta saasoo kale synthesize mayba suubiyayana cellulose unugii suubiyayaan that gives strength ana soo adkaayo ama awoodsiyow and rigidity wana adkaayo to the plant cells unugyada dhirta. Protein are compounds composed mainly of carbon, nitrogen, oxygen and nitrogen. Proteinada may boha compoundyo ama isku dhisyo inta badan ku kooban carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. They are made up of wana may ba ku subsiyan small units unugyo ama halbeegyo yaryar called linkasaw amino acids ku subsiyan. Amino acids of a protein are joined together. Amino acididi proteinada yanisjeye wana iskinisjeye by a particular bond dabar gaare called linkasaw peptide bond.
amino acidyada borotiinka mayba NSJ dabar gaar ee linkasaw peptide bond. There are approximately mayba qiyaas ahaan jira 20 types of amino acids, 20 nooc oo amino acids ah, which are divided into anasol inshalgebiyo, essential and non-essential inshalgebiyo. Protein rich foods, cuntooyinka hodanka ka ee borotiinada, waa beans, fish, hens, animal meat, groundnuts, eggs, and etc. waa digirta, malaayga, doorada, xayawaanaadka hilibsho, looska, ukunta iyo wali lamida. Functions of protein. Proteinada may suubayaan marka. Formation of enzymes. Mayba suubayana enzyme ama dheecaana iyo suubayaya. Hormones. Dheecaanadaas may gobadaan marka wala dheeshiidaya. Hormones, hormones suubayaya. Growth, koritaanka suubayaya. Repair, dayactira suubayaya. Marka waa shaqooyin muhiim ah gobadaan jirka. Lipids are compounds of carbon, hydrogen, and oxygen. Lipids waa mayba ku koobanta carbon, hydrogen, and oxygen ku koobanta. Food is rich in fats. Waa cuntooyinka hodanka ka ah dufanka. Mayba kumada fatty meats and fish, cheese, butter, avocado, nuts and seeds, chocolate, dhammaan intaasay mayba cuntooyinka lagu helo fattiska. Lipids are fats and oils. Lipidska mayba waa fats iyo oils. Dufanka iyo saliidda. The building units of lipids waxyaalaha ka koobanta lipidska mayba fatty acids, acidyada fattiga ama saliidda and glycerol, dufanta and glycerol iyo kuwa saliidda. Lipids are considered to be rich in energy. Lipidska mayba leen qeexay ama laka qeexay inay hodan ka yihiin energy-ga. Function of lipids. Shaqooyinka lipidska gobada ama dufanta gobadaas. Formation of cell membrane. Mayba suubayanaha xubka ama dahaarka unugyada. Heat insulation of the skin. Saasoo kale mayba suubayana mayba ilaaliyana xaddiga korontada kulaylka jirka ama maqaarka. Vitamins, minerals, and ravage. Vitamins are organic chemical compounds. Waa organic chemical compounds waaye ama isku dhisyo oo kimikeed oo organic ama organic that are essential for a healthy body. Hana soo muhiimanga jirka. They are obtained from wanamaba lagu helayihiin fruits and vegetables. Mira iyo qudaarta. Waa organic markii la keeno waa waxyaalaha naturalka ah. saas darteed maadaama ay natural yihiin mayba lagu helay fruits and vegetables. Some are synthesized, qaar mayba laga dhaha suubiyay in the body, jirka laga dhaha suubiyay by the activity iyo oo la adeegsado shaqooyinka of microorganisms ee noolayaalka present xaadarka ka ama ka dhaha jira ama ka dhaha nool in the gut caloolada. Example tusaale ahaan vitamin K oo kale. Vitamin K oo kale. Minerals are inorganic substance. Mineralada ama mineral macdantu mayba waa inorganic oo kuwo oo natural ama required waana mayba aan u baahan yahay by the body jirka in small quantities. Tira yar aan u baahan yahay for body functions si jirkan shaqeeyo. Functions of minerals. Shaqooyinka mineralada ama macdanta maada. Formation of bones mayba suubayana lafaha, teeth, ilka iyo wali kale lamid. They are components of enzymes. Waa mayba isku dhisyo ama waxyaalaha isku jir enzyme ama dheecaane that involve hana soo ka shaqo leh in the transmission gudbinta of nerve impulses. Nerve impulses. Dareen wadayaalka. Nerve impulses. Dareen wadayaalka. They are vital constituents. They are vital constituents of body fluids and tissue. Mayba muhiimiga yihiin isbedelada dheecaanada jirka iyo nodayaalka. Ya muhiim. Hadii leen hayna yani ma dhayaan walbada ma dhayo constituents ma dhayo.
Types of minerals. Mineral may ku kooban yihiin waa macrominerals. Macrominerals waa macdanta inta badan lagu baahan yahay ama in badan lagu baahan yahay jirka. They are relatively required mayba inta badan lagu baahan yahay in large quantities tiro badan lagu baahan yahay. May ku mid ah markan example tusaale calcium tiro badan jirka ugu baahan yahay. Sodium tiro badan jirka ka filan aan baahan yahay. Phosphorus tiro jirka ka baahan yahay. Potassium sidoo kale and etc. wali kala leedahay. Dhammaan ardayaal mahadsantiin oo ka mayba ka reebadaan inta ka reebadaan insha Allah haddii Ilaahay ogolaado. Mayba ka dhawaada Sanakaba Academy oo runtii walbadan siin ku qabtiro doona haddii Ilaahay ogolaado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.